إحكام النون الساكنة والتنوين للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فقل تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للعلق ست الرتبة تعرفي. xafladan oo ahayd mid qalinjabina ayaa maanta loo qabtay arday xifdisay qur-aanka kariimka oo ka qalinjabisay macadka xifdinta qur-aanka kariimka ee mucaad binu jabal. ugu horeyna waxaa xafladii lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha macadka mucaad binu jabal macalin dhaqane axmed oo ka hadlay baahida macadkaasi uu qabo. ilmaha meesha dugsiga ku akhrista waa 204 cunug markaan oo noocyo kala duwan leh. laba qaybood waa qayb iskuulka ay aadaan oo iskuulay qaybna taxfiid ahaan ay u joogaan oo inta badan intay maalintii ay ku eegayeen joogan masla hergelna marka ilmaha waa labadaas nooc. taxfiidka qaybta ah oo maalintii dhan mahana iskuul qaadana way ka duwan yihiin ilmaha kale oo iskuulka aada balse kuwa kale laftooda aad baan ugu dadaalnaa inta waqti noo soo harta iskuulka intaas noo soo reeba waan ku dadaalnaa inaan xifdisino qur-aanka. markaan ilmaha labadaas qaybood ay ka kooban yihiin meeshii marka oo ujeedaan 3 qol oo cariish ah 204 cunug iyo arday macnaha macallimiinta ilaa 6 7 8 dhan ayagana intaan isla hergalaan maalintii oo dhan. markaan ilaah maalada masquulna way noo dhisantay cariishkan waa noo dhismay meeshaan marka maalintii aan ku qaadanaa ilaahay baa mahad iska leh. meeshii oo caliili ah oo meel kale aan u baahanayo muhiim noo ah iyo barkadi oo weliba noo sii daran tahay barkadi labada howlad ee hadda nooga dhib badan jazakumullahu khayr. sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay sheekh maxamuud macalin cabdikariin sheekh maxamuud bilibili oo ka mid ah culimada waaweyn ee ismaamulkani. xafladda la dhigay koonkan xafladda ugu sharaf badneed waaye rag badana loo sacbiyaa markii mitime iyo meelahaas bersada la isugu imaada tii lagu allaasaayay tii lagu sacbinayo maatan waa xaflad ilaahay dartiis loo dhigaa. cilmiga waxaa waaye waa shayga keliya oo rasuulkeena subanay salawaatullaahi wasalaamu calayh ilaahay uu leeyahay macnaha tuug in lagu badiyo ilma macnaha madaxtinimo xoolo caafimaad intaas tuug lama dhihin waa halka shay keliya kulliba haddaad wax tuugaysa oo wax ziyaadaha dalbaysa waqul rabbi zidnii cilman dhih ayaa la dhahay. marka sidaa darteed axaadiis fara badan iyo aayaad ayaa ku soo arooray kelimada cilmiga keliya waxaan u malaynaa 379 jeer aayadii mushtaqaadkeeda ay qur-aan ku soo aroortay. cilmiga ammaano waaye ammaanadaas in la qaada ayaa loo baahan yahay sideedana loo qaada 59 aayadood ayaa faraysa ammaanadaas in la qaata. cilmiga waa seef laba afli waaye haddii lagu camal fala darajaatin ayuu noqonayaa haddii lagu camal fali weeyana darakaad ayuu noqonayaa in lagu camal fala ayaa loo baahan yahay. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay xafladiina soo xiray wakiilka laga soo doorta deegaanka guba ahna madaxa wakiilada laga tirada badan yahay ee aqalka baarlamaanka hoose ee ismaamulka Mandera Jimcaale Cabdi Xasan. cunuga iskuulka dhaca oo SD minus keen waa la wada sheegaa ninkii dhacay cunuga waa dhacay meel geeyna malaha muxishmo meel ii raadi college ii geey meel waa la raadina laakiin wali ma arkin qaf dhaha cunugaygi quraanku waa kari way cunugaygi madrasada waa kari way waa ka dhacay oo ka xanuunsanaa ma arkin maxay yeeli ma loo xanuunsanaynin diinta oo loo xanuunsanaa midaan kala yaa wax anaka nagu jiro way waxaan aaminay on qalbiga naga gelinay irsaaqadeena inay iskuul ku jirto ma jirto bal raadiya cunug ka soo baxay madrasa oo sheekh ah oo wax bartay oo walaalkiis ku caasi laakiin waxaad arkaysaa niman lacag leh guryaal weyn degan hooyadooda ay u imaadi karin aaboodaas u imaadi karin islaanta hadalkeeda yeela ama aan ii xila ama hooyada u xila waan aragnay waa jirta xaqiiqi waa marka ugu horeynta horta ciyaalka loo duceyna
عندنا مركي الله سامك يلبدك يدلل الله كحفظ إسكده إلى حفظنا مركز madaarista iyo dugsiyada quraanka oo ah goobaha lagu barto culuumta sharciga iyo quraanka kariimka ma jirta cid saakulayso oo garab taagan dhan hayadeed iyo dhan dawladeedba waxa garab taagan oo jeebwa oo kaliya waalidiinta ilmahooda ay goobahaasi wax ka bartaan maxamed sheekh maxamed Fagir warbaahinta Star ismaamulka Mandera